عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. إلaahay nimcooyinka qofka uu siiyo bani aadamka ah jasadkiisa waxa ugu horeeya safka horena ku jira waxaa ka mid ah carabka. sidaa darteed ayuu ilaah kitaabkiisa ku manaystay bani aadamka oo wuxuu yidhi alam najcal lahu caynayn, insaankii laba indhood sow uma samaynin, wa lisaanan iyo carab iyo wa shafatayni laba bushimood. carab ayaan u samaynay iyo laba faruurood ayuu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. wuxuu rabbi tilmaamayaa inuu insaanka u sameeyey laba indhood uu wax ku arko, laba indhood uu wax ku akhristo, laba indhood oo meeshuu raba uu ku aado uuna ku soo noqdo. alam najcal lahu caynayn, waa laba indhood. nimcada ay haayaan iyo wanaagga qofka bani aadamka ah uu ka helo wax la soo koobi kara ma aha. nin dadkii hore ka mid ahaa oo aad u cibaado badnaa ayaa dhintay baa la yidhi. sidii loo qalqay weligii wax xumaana ma samaynin. mar allaala markii ilaahay hortiisa la geeyey ayaa waxaa la yidhi baa la yidhi addoonkayga qabta buu dhahay ilaah malaa'igtuu ku yidhi jannadana geliya, naxariistayda iyo fadligaygana ku geliya. ilaahow fadligaad sheegaysa maxaa waaye buu yidhi ayna camali, aaw camalkaan qabsaday ani. fadligaa aad sheegaysay jannada ku geliya aad leedahay maxay tahay? aaway camalkii aan samaystay? aaway cibaadadii intaasoo dhan aan ku caabuday? aaway wixii fiicnaa een markaa aan qabsaday? aaway camalkaygii? addoonkayga wada ee jannada geliya, fadligayga ku geliya buu dhaha ilaah subxaanahu wa tacaala. ilaahu fadligaa sheegaysa maxaa waayuu ku soo celiyey ayna camali, camalkayga aaway? war addoonkayga qabta ee jannada geliya, muu iska gala jannadii? wuxuu yidhi ani camalkaygaa rabaa inaan ku gala jannada. soo celiyaa la yidhi. marka waa la xisaabtamaa oo marxaa la xisaabtamayaa camalka uu sameeyey iyo jannada uu u socdo iyo nimcada ilaahay siiye subxaana wa tacaala. ishaa la soo bixiyey, waa hal il keliya. ishii markii la soo bixiyaa meesha la soo dhigay, waxaa laysku barbardhigay camalkuu qabtay iyo isha nimcadii iyo wanaagguu ku samaystay. intii wax uu ku arkay, wisqaadkuu ku wisqaadanayey, wixii markaa uu samaynayey, arrimooyinkii oo dhan oo isha ilaahay nimco ahaan uu u siiyey uu ku barwaaqoobay ayaa la xisaabay. camalkiisii waa dhammaaday, ishiina weli nimcadii loo galay ilaahay uu u siiyey nusay maraysaa. ishii kale lama la gaarin, dhegtii kale lama gaarin, ta kale lama gaarin. qabtuu dhahay ilaahay naarta geliya, ilaan wixii waa dhammaadeen. sababtu waxay tahay rasuulka wuxuu yidhi axad camalkiisa janno ku gelaya ma jiro. waayo jannada marka la fiiriyo camalkaad qabanaysa isku mid ma aha. camalkan qofka uu samaynayo hadhow darajada kor in loogu qaado ma ahee, jannada gelitaankeeda hore kow la gelayo fadli ilaahi baa lagu galaa subxaana wa tacaala. ilaa rasuul ilaahay uu tilmaamay subxaana wa tacaala ahlu jannaadka mar allaala markay jannada galaan ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala ahlu jannuhu yuxallawna fiiha min asaawira, jijimooyin baa lagu qurxiyaa oo dahab ah, luul iyo libaas, labiskooda waa xariir. waqaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan. waxay leeyihiin ilaahay baa mahad iskale murugta naga bixiyey. ina rabbanaa lagafuurun shakuur, rabbigeen waa ghafuur shukrin badan. waayo intuu qofku bannaanka taagan yahay murugaa haysaa. maxaa lagu dhihi doonaa? qabtee naarta geliya maa la dhihi doonaa? ilaahayaa murugtii naga bixiyey. adhaba cana alxasan. ina rabbanaa lagafuurun shakuur aladii axallanaa daara almuqaamati min fadlihi, waa allihiina dejiyey daarta muqaamada. maxaa lagu dejiyey? aladii axallanaa daara almuqaamati min fadlihi. camalkeenna ma dhahayaan
oo fadliga ilaahay bay leeyihiin, waayo ilaahay nimcooyinkiisa wax la soo koobi kara ma aha. wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha. ilaahay nimcadiisa haddaad damacdaan inaad tirisaan ma tirin kartaan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. insaankuna waa kufri badan, dulmi badan. saa darteed baa qofka muslimka ah mar walba waxaa la faraa oo ilaahay uu faraa inuu nimcooyinka ilaahayna ku shukriyo, khayrka iyo wanaagga ilaahay siiyeyna uu ku mahdiyo. sidaa darteed buu ilaah yidhi alam najcal lahu caynayn. midda labaad maxay tahay? wa lisaanan. waa mawduuceenna caaba, ilaalinta carabka iyo qofka inuu wakhtigiisa ilaaliyo. wa lisaanan wa shafatayn, carab iyo laba bushimood. carabkana nimcooyinka ilaahay buu ugu waaweyn yahay. qofku hadduusan lahayn ma hadli karo, wax ma u dhadhami karo, wax fiican ma samaysan karo. waxaa isugu mid noqonaya hilibka la dubay ee la shiilay iyo ciidda cunitaankeeda, waa haddii carab uusan lahayn. wa lisaanan wa shafatayn. shafataynka waa labada faruurood, ziine iyo qurux ayuu afka u yeelaa. qofku hadduusan lahaynna waa laga carari lahaa baa la yidhaahdaa. saa darteed baa ilkihiisa iyo wixiisa oo dhan bannaankay yimaadaan. ilaahay subxaana wa tacaala waatuu tilmaamay laqad khalaqna alinsaan fii axsani taqwiim. taqwiimtan u fiican ayaan ka khalaqnay buu dhaha ilahay insaanka subxaana wa tacaala. haybad gooni ah, qurux gooni ah, sharaf gooni ah ayuu ilaahay insaanka u yeelay subxaana wa tacaala. ilaahay waa allaha idin qalqay fa axsana suwarakum. suurooyinkiinnii ilaahay wuu qurxiyey subxaana wa tacaala. markaasaa rabbi wuxuu dadka amrayaa inay dadka aad iyo aad ugu dadaalaan carabka nimcada weyn ee uu leeyahay. muxuu u baahan yahay marka? wuxuu u baahan yahay xifdin, wuxuu u baahan yahay ilaalin. qofku inuu aad iyo aad u xafido. haddii wakhtigaadana aad dayacdo, carabkana aad ku dayacdo, dhibkiisa markaa yimaadaa. sababtu waxay tahay waxaad fadhiisanaysaa meel, maantoo dhan wakhti baad ku bixinaysaa. adoo wakhtigii ku bixiyaad haddana hadlaysaa. hadalkaagiina ma aha hadal xasanaad laga helo, ma aha hadal ilaah subxaana wa tacaala agtiisa wanaag ku gaara, ma aha hadal aad janno ku gasho. marka qofku waa inuu xafidaa, ilaaliyaa carabkiisa iyo wakhtigiisa labadaba. way isla socdaan carabka iyo wakhtiga. carabkaaga khayrka ku sheeg, carabkaaga qur'aanka ku aqri, carabkaaga wax fiican oo aan dembi lagaaga qoraynin ku dheh, carabkaaga shaqo xalaala kala shaqayso, carabkaaga saa io aad u sameey. nin baa rasuulka u yimid oo ku yidhi man najaad, maxaa lagu badbaadaa rasuulkii allow? rasuulkii allow maxaa lagu kori karaa? carabkiisa intuu qabtay buu dhahay kuf calayka haadaa, korkaaga ka qaba midkan. ma rabtaa inaad badbaado? kan iska qabo. ma rabtaa inaad fakato? midkan ilaali. ma rabtaa inaad janno hesho? carabkaaga ilaali. waa sahlan yahay inuu janno ku geeyo, waana sahlan yahay inuu cadaab ku geeyo. wax ka jumri yar, ka fudud oo ka dhaqdhaqaaq badan ma jiro. haddaan laga faa'iidaynin, khayrka looga faa'iidaynin, diinta aan loogu shaqaynin, xaqa aan laga sheegin, diinta alla aan lagu difaacin, qur'aanka aan lagu aqrinin, muslimiinta aan macruufka lagu amrin, munkarka haddaan looga reebin, cadaab buu ku geeyaa. kan iska qaba buu dhahay nebiga sal alla calayh wasalam. midda labaadna gurigaaga ha ku deeqa buu dhahay. war guriyaad leedihiina guryihin ha idin deeqo. wakhtiga ha dayicina oo bannaan fadhi iyo fadhi ku dirir iyo bannaan ku soo qayl iska daaya. khaasatan ragga reeraha leh, mar allaala markaad taraawiixda tukataan guryihiina iska aada. wax faa'iido leh bannaanka lagama helo. haddii faa'iido laga helo, maroodi iyo waraabaa wax ka heli lahaa faa'iidooyin oo duurka iyo bannaanka saa ugu jira. bannaan fadhiga iska dhaafa, guryihiina ha idin deeqo. taasaa idinku badbaado badan, taasaa carruurta u farxad badan, taasaa xaaska u khushuuc badan, taasaa hurdo fiican ku timaada, taasaa cibaadada lagu xoojin karaa, taasaa dhaqso lagu soo toosi karaa. waxaan intaad bannaanka maantoo dhan saasaa la yidhi iyo kanaa la yidhi iyo waxaasaa la lahaa aad ku dhahaysaan, 8 habeennimo ama 2 habeennimee fiidkii weliba saqda dhexe aad ku gaaraysaan, oo subaxii aan salaad subaxna laydiin toosin karin, aadaan meel aad ka maqashaanna aadan joogin, dhibkeedee leedahay ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala. gurigaaga ha ku deeqa buu dhahay nebiga. gurigaaga iska fadhiiso, fitan baa jirtee. gurigaaga iska fadhi, waa lagu badbaadaa.
qof allaala qofka alla guri siiyey nimcooyinka allay ka mid yihiin subxaana wa tacaala. ilaahay waa allaha idiin sameeyey buyuut iyo guryo, wuxuu idiin sameeyey sakan sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala. maqaarka xoolaha gobol ka mid ah wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaafan wa mataacan ilaa xiin. waxaasuu rabbi noo sameeyey subxaana wa tacaala. sidaa darteed baas dad aan reer lahayn oon guryo lahayn oo ciyaal suuq oo kalaan iska dhigaynaa, markaasaa dhaxantaa nagu dhacaysaa, dumarkuna daawanayaan. wax kastoo dhibaataa waddada laga sheegay oo rasuulku intuu ummadda uga digaayoo dhan ayaan markaa samaynaynaa. marka carabka aad ha loo ilaaliyo, carabka ha la wanaajiya. midda saddexaadna rasuulku wuxuu ku yidhi oo lagu badbaado dembigaaga ka ooy. haddii bani aadam baad tahee qalad kaa dhaco oo dembi aad gasho, ooy buu dhahay rasuulka sal allahu calayh wasalam. yaa ooy waa qosolnaaye, waaba ku faantannaa annagoo macaasida iyo dembiga ku jirnaa. video layska duubaa maanta, heerkaasaa la marayaa bani aadamka dhibka maanta iyo waxyaabaha uu samaynaayo, asoo fisqigii ku jira, asoo macaasidii ku jira, asoo wixii ilaahay diiday ku dhex jira, asagoo qaylaaddii u dul fadhiyaa yaa kaamira laga duubaa. taasaa caalamka loo kala diraa. heerkaasaa maanta la marayaa. rasuulkuna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam, ummaddayda dhammaantood waa la cafinayaa. waa la cafiyey ummaddayda dhammaantood, ilaa waxaan la cafinin dadka mujaahiriinta ah ee xumaanta la jahra. yaa waaye mujaahiriin baa rasuulka la yidhi, waa qofka intuu camal qabta habeenkii ilaahay u asturoon la ogaanin, waa bariista asagoo dilaacinaya wuxuu ilaahay xalay u qariyay subxaana wa tacaala. waxaasaan sameeyey, intaan ka dhacay, waxaasaan sameeyey, 3 dhalan ka turay qamrada, hiblaayaan raacay, saasaan yeelay, intay i tiri kanay ka baxday. subxaana allah. saa darteed carabka aad iyo aad ha loo xafido. inta la ilaalin karaana ha la ilaaliyo. dembiga ha laga ooyo, guryaheennana hana deeqaano. rasuulku wuxuu yidhi maalin walba oo waagu baryo, xibnaha oo dhan carabkay hoos yimaadaan, carabkay wada hoos imaanayaan. markaasay leeyihiin ilaahay nooga baq carabow, war carabow ilaahay nooga cabsa, innamaa naxnu anta anagu adigaan ku nahay, war waxaad noqotaan nahay. haddaad toosnaato waa toosnaanaynaa carabow, haddaad qalloocatana waa qalloocnaanaynaa. taana waxay tilmaamaysaa carabka in la ilaaliyo inay aad iyo aad u fiican tahay. ma daalo walaalayaal, carab noogama aragteen weli. yaa maqlay carabkaygaa daalay? allah, hadal baan ka daalay. naag tiri weli ma arkin, nin yirina weli lama arkin. xibnaha kale way daalaan, asagu ma daalo. kiilo sokor haddaad qaadda maanta ama 3 kiilo, jaranjarada aad la korto, caawa dhan gacmaha laguu riixriixayaa. meel dheer haddaad ka soo lugaysana masaajaad u baahan tahay lugaha laguu mariyo. dhabarka haddaad wax ku qaadda way ka sii daran tahay. laakiin carabka laga soo bilaabo subaxii ilaa habeenkii hadduu hadlo oo hadal ku soo celceliya caawoo dhan, haddana weliguu sii rabaa. waa la qabtaa, waa la xakamay, waa la hordisiiya maahane. waa daalayna ma yaqaano, waa noogayna ma yaqaano, maantoo dhan baan hadlaaya ma yaqaano. saa darteed baa waxaa loogu xabsi gelin badan yahay oo wax xabsi mudan in la xabaaso carabka ugu horeeya. waa libaax oo kale, haddaadan iska qaban aduu ku cunayaa, haddaadan iska qaban aduu cadaab ku geynayaa. mucaad ibnu jabal rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu ku yidhi ma kuu sheegaa waxaasoo dhan wax kaa milkiya oo kaa hanta? muxuu yidhi haa. rasuulku wuxuu qabtay carabkiisa, kuf calayka haadaa, bidkaa korkaaga ka qabo. mucaad muxuu dhaha yaa rasuulallah, ma waxaana loo qabanayaa bimaa natakalam, waxaan ku hadalno, waxaan ku hadalna maa ilaahay noo qabsana? fakiladka ummuka buu dhahay nebiga, hooyadaa ku weysay, habartaa ha ku weysee. ma dadka lagu afgembiyaa sanqarooradooda iyo wejiyaalkooda naarta ilaa bixasaa'idi alsinatihim, waxay carabka ku gurtaan maahane. war wax kale maa naar lagu galaa waxaan saaki ku hadalnay maahane walaalayaal? ma wax kale ilaahay wejigeena naarta ku afgembiyaa ilaa hadalkaan saaka sheegnay, kii shalay iyo kii daraad iyo kii sanadkii hore iyo kii sanadkii naga soo horeeyey maahane? wax kale oo naarta lagu gala muxuu yahay ilaa waxaad carabka ku gurataan maahane. fakiladka ummuka, hooyadaa ha ku weysa mucaadow. sababta waxay tahay mucaad waa ummadda nebiga ninka ugu xalaal iyo xaaraan og. ummaddayda qofka ugu xalaal iyo xaaraam og waa mucaad ibnu jabal buu dhahay nebiga. mucaadow admaa saa dhahaya, adigii xalaasha iyo xaaraamta ummaddayda ugu sarreeyey ma hadalkaa ku hadlaay? hooyadaa ha ku weysee. dadka waxa naarta loogu afgembiyo, sanqaroorkooda loo saaro, waa waxay carabka ku shaqaystaan. ee carabka ha la xafido.
intii la ilaalin kara ha la ilaaliyo. tasbiix baa la baraa, dikri ilaahay baa la baraa, ilaahay inuu xusaa la baraa. xanta markuu xantaa la garaacaa. abubakar intuu meellaaba galay carabkuu qabtay bar markaasuu saas u soo jiida, dharbaaxu u gelina, wuu garaacayaa. markaasuu leeyahay haada aladii, waa midka igu aroorinaya cadaabka. ani wax kaloo cadaab i gelinayoon kan ahayn ma jiro. alla kan xaggeen geeyaa macnaha, kan seen yeelaa, kan waay waxay halaagaya aniga. wuu canaanana, wuu tumayaa, wuu garaacayaa, dhibaatou gaarsiinayaa. saa darteed baa carabka waxa dhibaato ee uu keeno wax la yaraysan kara ma aha. asaa wax laga xantaa, asaa alla laga caayaa, asagaa diinta loogala dagaalamaa, asaa dadka wax looga sheegaa, asaa dadka lagu caayaa. wax walba asaga hoos yimaadaan, wax walba waa sayidka ayuu u yahay. xibnaha oo dhan way u khuduucaan, asagay hoos tagaan. saas darteed bay mar kasta la hadlayaan oo ay leeyihin carabow dhulka dhig, lugaha dhulka dhig. haddii la baro diinta alle, dikriga alle waa waxa ugu horeeya ee dadka jannada geliya. jannada waxa ugu horeeyaee lagu galo waa asaga. waa goormee? waa hadduu tooso, waa haddii dikri ilaahay la baro, waa haddii ummadda ilaah subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga uu asaguna amray ha badiyaa. hal xarafoo qur-aan haddaad carabka ku akhriso meeqa xasanaad baa lagu siinaya. dad haddaad macruufka ku amarto meeqa xasanaad baa lagu siina. qof haddaad dhahda ilaahay uga baq meeqa xasanaad buu qofku helaya. waa waxaan la tirin karin, waxaan la soo koobi karin. sidaa darteed dadka muslimiinta ah waxaa si ba'an loo farayaa inay carabka aad iyo aad u ilaaliyaan, inay si fiican carabka u xafidaan. hadalku hadduu fido yahay, aamuskuna waa dahab. aamuskana dahab ayuu noqona, waa haddii hadalku fido noqdo. qof kasta qofka kale intuu ka hadal badan yahay wuu ka dembi badan yahay. qof kasta qofka kale inta uu ka hadal badan yahay wuu ka dhacdhac badan yahay. qof kasta qofka kale inta uu ka aamus badan yahayna waa ka salaamo badan yahay. af daboolan dahab waayay dhaheen soomaalida. waa dahab, waa haddii la daboolo. laakiin waa haddii xaqa aan laga daboolin, xumaanta laga daboolo. haddaad hadlayso oo aadan wanaag sheegaynin, iska aamus, taasaa kuu fiicane. haddii kala hadaloo khayrku hadal. man kaana yu'minu biاllaahi waاlyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. qof kastoo ilaahay rumaysan, maalinta aakhira rumaysan, khayr ha ku hadlo ama ha aamusa buu dhahay nebiga sal alla calah wasalam. war khayr ma noo sheegaysaa? wax fiican oo na anfaca ma noo sheegaysaa? maydhe naga aamus, ma rabna hadalkaaga. qof kastoo hadalkuu keena, xam bilaaba, waxyaabo aan fiicnayn bilaaba, naga aamus dhaha. hadalkaaga ma rabnee, hadalkaaga ma rabno. ninka lagu magacaabo nebiga markuu aadayay qaswatu tabuuk, mar allaala markii meesha la tegey dadku way badnaayeen. kacab buu xasuustay. kacab ibni maalik aawir uma jeediye. ninbaa intuu istaagay wuxuu dhaha laba go' buu gatayoo garbuhu saasaartay, wuu isla tacajubayo, waa isqaadqaadaayey. bi'sa maa qulta, waxaa yidhi saxaabi saxaabada ka mid ah. bi'sa maa qulta, waxaa tiri waa baas leh, naga aamus. wallaahi rasuulkii allow khayr ma ahee, ana wax kale kuma ogin. wuxuu ku maqan yahay ilaahay baa og. wax allaale wuxuu ku maqan yahay rabbiyaa garanaya. laakiin kacab annagu khayr ma ahee, wax kale kuma naqaano. saasaa loo baahan yahay. waa la qaadqaadaynaa maanta 3 gabdhoodoo qur'aan akhrisanaysa ama 2 tu hadday u timaado, war ma maqasheen xalay wixii dhacay? ma maqasheen waxa suuqa ku jira? kutubo dhan waa la wada laabayaa. maxaa suuqa ku jira? heblaha nin aroostay. waxaad leedahay maxay soo wadi? haye hadday aroostayna dahabkeeday gadatay, ee hadday gadatayna gurigeeda iyadaa dhigatay, ee hadday dhigatayna subxaana allah. waxaan ku hadlayno iyo sida xaalkeena yahay waxyaabo kala fog waay. masaakiintii kutubaha akhrisanaysayna way dembi gelisay, ayadiina khayr iyo wanaag meeshii lama imaanin. haddiise la dhihi lahaa naanaga aamus waa edab daran tahay, maxaa kaa galay intaas? qof kaloo hadal noo keli lahaa ma jiro. laakiin dhibka maantana haysta maxaa kale ilaa heer qofka uu gaaro wuxuu sheegi lahaa oo runa inay dhammaato, beenna uu noo miiso, beenuu nagu kiisayaa markii dambe. inan waa lala wadwadaa, waa loo qoslayaa, looma qoslo, lama wadwado. naga aamus baa la yidhaahdaa. xaaladaasaa khayr iyo wanaag ku jiraa walaalayaal. rabbi inaan ka baqno, taacada alle aan ku dadaalno, khayrkana aan badsano, awaamirta ilaahayna aan ilaalino, carabkan aan iska ilaalino. hal la xafida intii la xafidi karo. qaybta kale waa wakhtiga la ilaaliyaa. wakhtigu waa nimcooyinka ugu qaalisanay rabbi bixiye subxaana wa tacaala. waxa wakhtiga ah waa shay ugu muhiimsan. adduunka markii laisweydiiyey maxaa u qaali badan oo u sarreeya, gabdhaa la weydiiyey, dahab bay ku jawaabeen baa la yidhi. adduunka maxaa u qaalisan?
dahab waayay yidhaahdeen. wiilal dhallinyaraa la weydiiye oo la yidhi adduunka maxaa u qaalisan? gabar qurux badan ood guursatay yidhaahdeen. labadu way qaldameen, labadaba qalad bay ku dhaceen. sababta waxaa waye wax adduunka ugu qaalisan waa wakhtiga. haddaad wakhti hesho waad cibaadaysan kartaa. dahabkan aad u hanqaltaagaysa haddaad wakhti aad ku xirato aad weyse ka waran. wakhti aad ku xirataba haddii la waayo waa dhibaato. naagtan quruxda aad ku sheegaysa xilli aad aqal gashataba haddaad la waayo ka waran. eedan dhibkeeday markaa leedahay. marka dhibaato badan baa ku jira, waxyaabo aad iyo aad u weyn baa ku jira. wakhtigu waa shay laisweydiinayo maalinta qiyaamaha. ilaahay sida uu tilmaamay subxaana wa tacaala, wakhtiga waa laisweydiinayaa. maalinta aakhir waxyaabaha laisweydiiyuu ka mid yahay. sidaa darteed walaalayaalow aad intaad u dadaashaan, amarka allana lagu dadaalo, wakhtigana aan ka dhigno wakhti aan ka faa'iidaysano. wakhti aan ka faa'iidaysano. fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin camaa kaanuu yacmaluun. wakhtigaa loola jeedaa rabbigaa ayaan ku dhaartay nebi moxamedow. ilaah saa isku dhaaranaya. fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin, dhammaantood waa su'aalaynaa. camaa kaanuu yacmaluun, waxay camal qaban jireen. wakhti baa lagu camal qabtaa. idaa wakhtiga aad iyo aad u ilaaliya walaalayaal. waxaan wakhtiga oo dhan howl adduun aan gelinay, howl adduun aan gelinoo qiyaamaha la iloobo qalbigeennii qalle aan iska dayno. heer waxaa la maraa kiniisad wax laga akhristo, heer waxaa la maraa kiniisad ma ka shaqayn karaa, heer waxaan maraa xataa raashinka bacdamaa ilaahay subxaana wa tacaala aan si dhabnimaa u aamini weynay, meel xun buu naga galay. salaad layma ogolaad maqlaysaa. baakan ku dugtaa gabar baa tiri. baako waxay kari weysay salli inay isdhigato oo ilaahay subxaana wa tacaala ku caabudo. iskuul baa la baranayaa. qofaa shaqo ku shaqeeya, waa loo diiday inuu salaad dugto. mar allaala markuu qofku baxa meesha madaxda u ah yuu si dhuumashaa 2 rakac muu tugta ma 3 buu tugto kala garan waaye. laa ilaaha ila allah. waa mustaqbalkii aakhiro. waa wixii ilaah subxaana wa tacaala loo dhammaanaya xaggiisa. waa wixii xoolaha noocaas oo kale ahaa. saa darteed walaalayaal wakhtiga aada looga faa'iidaysto. wakhtigu waa sayf oo kalea la yidhi. haddaadan iska qaban wuu ku gooynayaa, haddaadan ka faa'iidaysan wuu kaa faa'iidaysanaa. marka rabbi subxaana wa tacaala aan aad iyo aadna u caabudno, khayrka iyo wanaaggana aan aad iyo aad u samayno. ilaahay subxaana wa tacaalana aan noqono dad dhabnimo u caabuda, wakhti ku caabuda, aan ku caabudnana ilaahay aan samaysano. nalama dhihin 24 saac masaajid ku jira, nalama dhihin 24 saac kitaabka ku rogmanaada, nalama dhihin 24 saac intaad ka suuxdaan hurdo istaagga uga dhacdaan salaad u taagnaada. saaca bisaaca, saacadna alla la caabudaa, saacadna naftaada xalaashaa mataqaana loo raaxeeyaa, saacad shaqadaadaa lagu ogol yahay. shaqadii waa naloo ogolaaday, laakiin annagoo nala ogolaaday ayaana la yidhi haddana ogaada rabbigiin ha iloobina. laakiin maanta allaan ku ilownay subxaana wa tacaala. salaada subax sida tukaan loo furo yaa 12 habeenkii, waa 6 saac habeenkii aa la xiraa. salaad ma jirto. salaada subax baa laga yaabaa inuu tugtay, inta kalena waxaa leeyahay iga tirso. cishaha marka la isugu tagaa inta kale loo tiriyaa ilaahay subxaana wa tacaala. aaway salaadii. saxaabada maxaa laga soo sheegay? dadkii wanaagsanaa maxaa laga tilmaamay? mar allaala markuu suuqa aado intuu ku qadayn laha hadduu helo inta kale masaajidka iskaluu dhihi jiray. beydka allah iska leh subxaana wa tacaala maba naqaanbaana, waa agmarnaa, waana soo agmarnaa, waana sii agmarnaa. xaggee u soconaa? suuqaa u soconaa. buqca ilaahay ee adduunka ku taala suuqa ugu necab yahay, anaga suuqaan ugu jecelnahay. buqca ilaahay oo adduunka ku taala masaajidadu ugu jecel yahay, asagaan ugu necabnahay. war ha noqon buu dhahay rasuulku qofkuu la dardaarmaya qofka ugu horeeya suuqa gala ugu dambeeya ka soo baxa. anaga waxaanahay dadka ugu horeeya suuqa gala ugu dambeeya ka soo baxa, ugu dambeeya masaajidada gala ugu horeeya ka soo baxa. assalaamu calaykum ta dambaan ku gaarnaa imaamka rakcada ugu dambaysa. kow qofka soo baxayna aniga waay. asaa ugu horeeya qofka hore soo baxa, asaan ugu dambeeyey. suuqa ma aho yaan lagaaga dheerayn buu leeyahay. intuu ku jiro uu kor dhex fadhiyo wuxuu leeyahay intaasoo uu ku yimaado hal kastama intuu kuu yimaado wax kaa gataa suuragal ah ama kaa gata aqimkaa socda. qad qaamati salaad baa lagu jiraa. wuxuu leeyahay hal naagoo socota hal boors amay kaa gadataa iyo hal surwaal, nin kaa gata amaa la helaa. intuu laa ilaha illah ka dhahayo markaasaasuu meesha u joogo laga yaabeeba salaadoo dhammaatay inuu markaa tago. waa ninka noogu fiican. subxaanaka yaa ilaahay, aad aan u baqno, ilaahayna aan caabudno, daacada ilaahayna aan ku dadaalno. saas darteed baa goobaha adduunkana suuqu uu shar badan yahay. waa meesha uu ku ukumeeyo buu dhahay nebiga shaytaanka. raayaduu surtaa calankiisa, waayo qish iyo khiyaano iyo
malab saliid lagu dara iyo dad la booba iyo riba iyo dhaar been ahoo badeeca loogu dhaarto suuqa loogu tagaa. xasilooni, deganaan, dikri ilaahay, malaa'ig meelay fadhiso masaajidkaa loogu tagaa. waana laga kari la'yahay. dadkii hore waxaa la yidhi say wakhtiga diinta ugu ilaalinayaan ninka jazaarka ee kawaanlaha ah hilibka gadaa. mar allaala marka qofka hilibka ka gadanayo uu hortaagan yahay, hadduu seefta ku dhufto, macnaha baangada markuu saas ugu dhufto lafta way gashaa. waxay u baahan tahay in xoog laga soo bixiyo. allaahu akbar haddii lagu addimo kama soo siibi jirin, waa uga dhex tegi jirin. dadkaasaa gartay janno waxay tahay. dadkaasaa gartay ilaahay abaalgudka agtiisa yaala subxaana wa tacaala. kastoo sug 5 salaad baa noogu dhaaftaa. jumco keliya qaarkeen tukadaan. jumcadiina waa la isaga daba yimid ayadana. jumcadaan waa ku fiicnaan jirnay, iidiina ma jirto maanta. ciiddaa soo hartay, ayadana waa la isaga daba imaan doonaa haddii sida aan ku socono aan wax ka bedelin. iidana waa la isaga daba imaan doonaa sida aan ku socono haddii ilaahay uusan naga soo gaarin subxaanahu wa tacaala. carabka waa la ilaaliyaa, wakhtigana waa la dhowraa. wakhtiga wax lagu ilaaliyo salaada ugu fiican. rasuulka su'aal baa la weydiiyey, camal la qabta kee u fadli badan rasuulka ilaahayo? muxuu yidhi salaad oo wakhtigeeda lagu tukado. salaad wakhtigeeda lagu tukado waa camalka ugu fiican ee ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala. dad carabkooda ilaaliya allah naga dhigo. dad khayrkii wanaagga ku dadaala allah naga dhigo. dad taacada ilaahay ku socdana rabbi ha naga dhiga subxaana wa tacaala. carabkaana dilay ee cadaabka noo wada ee jahannamo nagu aroorin doonana ilaah subxaana wa tacaala ha naga qabto. wabillahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala.